Assalaamu calaykum. Waa muuqaal cusub oo aynu ku eegi doono hadal yarida waxyaabaha qofka ku caawinaya in uu noqdo qof hadal yar iyo sidoo kale faa'iidooyinka ay leedahay qofku in uu noqdo mid aan hadalkiisu badnayn. Bulshadeena Soomaaliyeed waa mid aan waxba qorin waxna akhriyin oral society sida badan. Waa bulsho hadal yaqaan afmaal ah oo aan aamusi karin iyada oo aynu la qabno dhaqankan Carabta oo ay cilmi baarisyo sheegeen in qofka Carabka ahi uu maalinkii ku hadlo in ka badan 20,000 oo eray. In uu qofku dadka sheeko la wadaago si idan la'aan ahi waa mid aynu dhaqan u leenahay oo laga yaabo in adigaagan muuqaalka hadda daawanaya wax badan kugu dhacday oo idinka oo warwata midi idinka jiray judhiba. Marka aynu ka hadlayno aamuska waxa muhiim ah in aad ogaato xogtan qaaliga ah, taas oo ah in marka aad joogto wadan gaalo iyo marka aad joogto wadan muslim ay jirto astaan iyo sumad aad markiiba ku garanayso wadankani in uu wadan muslim yahay iyo in uu wadan gaalo yahay. Arrintaas aad ku kala garanayso oo aan ahayn labiska iyo caqiidada waxa weeye astaantaasi in dadka muslimiinta ahi ay yihiin kuwo iskacan qabto oo dareenka isla wadaaga. Jawiga guud ee wadanka muslimka ahina uu yahay mid ku dhisan farxad iyo isxal waraysi, halka wadanka kale ee gaalo uu ka yahay mid aanay dadku isla hadlaynin, shaqana aanay isku darsanaynin. Sababtuna waxa weeyaan in qofka muslimka ahi uu haysto diin cibaado kaga dhigaysa in uu dadka dhexgalo oo dareen wadaag la noqdo isaga oo kaalmaynaya ka taagta daran. Haddaba aamusku waxa uu ku yimaadaa sababo dhowr ah sida in aad cadhoonayso, in aad niyad jabsan tahay ama jab maagan tahay, in ay jirto hawlo aad ka gaagaabsanayso iyo ujeedooyin kale oo badan. Haddaba waa kee ujeedka aamus ee aynu u baahannahay? Waxa inoo sheegaya rasuulkeena kariimka ah isaga oo ina leh qofka rumeeyay Ilaahay iyo rasuulkiisa khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso. Waxa halkaa ku cad in aamusida iyo hadal yaraanta uu islaamku inaga rabo ay tahay hadal yarida aad u samaynayso in aad ka dheeraato wax kasta oo aan dantaada ahayn, sidoo kalena aan aakhiro ku badbaadinayn. Haddiise hadalkaaga loo baahan yahay oo aad cid ugu faa'iideynaysid ama aad cid ku badbaadinaysid, waa muhiim in aad markaas oo kale hadasho adigoo oo aan dhaafaynin xayndaabka oo aan karkaarka weydaaranaynin. Haddaba waa maxay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta ama hadal yaraanta? 1. Waxa ay caddayn iyo marag u tahay iimaanka iyo anshaxa qofka. 2. Waxa ay sabab u noqotaa jacaylka Ilaahay iyo kan aadamahaba. 3. Waxa ay sabab u noqotaa in uu qofku galo barta aynu rabno ee jannada kana fogaado naarta. 4. Waxa ay kordhisaa xikmadda qofka. Ninkii wanaagsanaa ee la odhan jiray Luqmaan al-Xakiim ee Quraankuna sheegay ayaa waxa ka mid ahaa hadalladiisii iyo xikmadihiisii qaaliga ahaa: aamusku waa xikmad, in yar oo dadka ka mid ah ayaana samaysa. 5. Waxa ay keentaa in laga haybadaysto qofka aamusa. 6. Aamusnaantu waxa ay qofka ka caawisaa in ay maskaxdiisu korto. 7. Waxa ay maskaxda iyo jidhkaba ku kaalmaysaa deganaanshaha. 8. Qofka aamuska badani waxa uu awood u yeeshaa in uu waxa la leeyahay ee uu maqlayo ama uu akhriyayo uu weeleeyo. 9. Aamusku waxa uu qayb ka yahay hal abuurka qofka iyo in uu wax soo kordhiyo. Inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan, waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.